Khajilaada fiican iyo khajilaada xun. Khajilaadan muuqaalkan kaga hadlaya maaha khajilaada fiican ee ka hor istaagta wixii diinteena islaamka iyo dhaqankeennaba ka soo horjeeda ee xumaan ah, balse waxaan kaga hadlayaa khajilaada xun ee ka hor istaagta inaad naftaada ahaato oo aad ku kalsoonaato markaad la joogto dadka kugu cusub ama dadka aanad aqoon badan u lahayn. Khajilaada aan ka hadlayaa sidoo kale waa midda xun ee kugu sababta inaanad si fiican wax u baran, isla markaana kugu sababta inaad keli ahaato oo aad dadka ka takoornaato. Sida looga takhaluso khajilaada xun. Shaki kuma jiro in khajilaada badan ay tahay qodob si xun u saameeya qofka kalsoonidiisa, sababtoo ah kalsooni la'aanta laftarkeeda ayaa sababta khajilaad. Qofka khajilaada badanna wuxuu ku dhex wareegaa giraan ka samaysan khajilaad iyo kalsooni darro, taasi oo burburisa noloshiisa. Haddii aad khajilaad badan tahay, waxaad ka fogaan doontaa la hadalka iyo dhexgalka dadka intii aad karto, adoo ka baqanaya inay dadku kula khajilaan ama aad tidhaahdo waxaanay dadku jeclaysan. Inkastoo laga yaabo inaad xiisayso la joogista aad la joogto dadka, haddana waxaa kugu adkaanaysa inaad hal erey ku darsato sheekadooda intaad la joogto dadka. Dadka khajilaada badani waxay fikiraan in ka badan inta dadka kale fikiraan, waxay inta badan falanqeeyaan wax kasta oo ka soconaya agtooda, waxay aad uga fikiraan faallooyinka ay maqlayaan, waxaanay wax kasta uga fikiraan si aad ah. Dhibaatada uu leeyahay habfikirka noocaas ahina waa inay sii xoojiso dhibaatada khajilaada, gaar ahaan haddii qofku uu bilaabo inuu ka fogaado dadka. Markaad ka fogaato dadka, waxaad u oggolaanaysaa in cabsiyahaaga aan runta ku dhisnayn ee aad ka aaminsan tahay dadku ay kugu sii weynaadaan, maadaama aysan jirin wax ku caddaynaya in fikirka aad haysataa qaldan yahay. Taasi waa sababta inaad dadka ka fogaataa ay u tahay qaladka ugu weyn ee aad samayn karto haddii aad rabto inaad ka takhalusto khajilaada badan. Warka fiican ee aan se ku hayaa wuxuu yahay in khajilaada badan ay ka mid tahay waxyaabaha sida fudud la iskaga daweeyo, waxaanad u baahan tahay oo keliya tallaabooyin kooban oo waxtar leh, farsamooyin aad kaga takhalusi karto khajilaada badan. Khajilaadaada waxaa laga yaabaa inay sababaan sababo badani. Kuwan soo socda waa farsamooyin kaa caawinaya inaad ka takhalusto khajilaada badan. 1. Joogtee la hadalka dadka. Habkani waa habka ugu awoodda badan ee aad kaga takhalusi karto khajilaada. Joogtee inaad la hadasho dadka aanad sida aadka ah u aqoon ama kuwa aanad gebi ahaanba wax aqoon u lahayn. Haddii aad tahay qof khajilaad badan, inta ugu badan waxay kuugu muuqan doontaa wax aad u adag inaad u tagto oo aad la hadasho qof aanad garanayn. Sababtuna waxay tahay hore ayaanad si adag oo karaankaaga ah iskugu dayin inaad qof sidaa ula hadasho. Hadda bilow inaad ku qasabto naftaada inaad la hadasho dadka aanad aadka u aqoon iyo kuwa aanad gebi si kastaba ha kugu qaadatee. Xataa sidan ku samee saaxiibada. Isku day inaad la hadasho saaxiibada in ka badan intaad la hadli jirtay. Bilowga ugu horreeya way kugu adkaan doontaa, balse mar kasta oo aad isku sii daydaba aad bay kuugu sii fududaan doontaa. Waxyaabaha uu habkani cajiibka ku yahay waa in dadka qaar ay dhinaca kaleba iska rogaan oo aad moodaysid dad aanay weligood dhibaato khajilaad haysan. Kadib markay baraktis gareeyaan habkan, waxaanay noqdaan dad aad u bulshaawiyiin ah. Gebi ahaanba waxaad khajilaada badan iskaga saari kartaa tababar badan iyo joogtayn. 2. Dhis kalsoonidaada. Sidii aan hore u sheegay, mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee sababa khajilaada badani waa kalsooni darrada. Waxaa laga yaabaa inaad ka baqato inaad hadasho, sababtoo ah ma hubtid waxay dadka kale kuu malayn doonaan. Halka arrintani wuu fudud yahay. Hadda bilow inaad dhisto kalsoonida naftaada, waxaanad khajilaada uga takhalusi doontaa iyadoon waqti badanba kugu qaadan. Tusaale ka mid ah kalsoonida hooseysa waa inaad dadka kale isku horreysiiso, xataa markaad wax adigu aad ugu baahanta. Waxaa laga yaabaa inaad isku daydo inaad qof kasta farxad geliso, taasina ay sababto inaad 100 jeer ka sii fikirto oo aad dhinac kasta ka eegto waxaad dadka ku odhan doonto, si aad u hubiso in qof kasta oo ku ag joogaaba uu jeclaado waxaad tidhi. Haddii aad sidaa tahay, hurdada ka kaca, ogowna in dunidani aanay ahayn mid dhammays ah, qof kastana aanad farxad gelin karin mar kasta. 3. Ka takhallus waxyaabaha kale ee sababaya khajilaada badan. Khajilaada waxaa sababi kara ka cabsashada dadka, muuqaal xun oo aad naftaada ka haysato, adoo mar kasta 100% isla quman, adoo dareemaa inaad qayrkaa ka hooseyso iyo qaar kaloo badan. Si aad uga takhalusto khajilaada badan, waa inaad ka takhalustaa waxyaabaha xididada u ah ee sababaya. 4. Ha ka fogaan dadka. Inaad ka fogaato dadku waxay sii xumaynaysaa oo ay sii adkaynaysaa khajilaadaada, maadaama ay kaa hor istaagayso inaad horumariso xirfadaha aad u baahan tahay si aad si fiican dadka ugu dhex gasho. Intay kugu qaadan kartaa inaad khajilaada badan ka takhalustaa? Markaad ku dhaqaaqdo tallaabooyinka ee aad waajahdo cabsiyahaaga, isla markaana aad ku dadaasho inaad beddesho fikradaha aad aamintay, markaas ayay bilaabmi doontaa bogsashadaadu.
dadka qaar waxay ku qaadataa dhowr toddobaad, qaar kalena waxay ku qaadataa dhowr bilood, waxaanay ku xidhan tahay sidaad hadba dadaalkaaga u samayso. Khajilaadda badan waa la iska daweyn karaa ee bilow inaad ka shaqayso. wax ka baro channel maha goob aad ugu iman doonto talooyin bilaataya ah iyo taba aan waxtar lahayn, balse waa degal aad ka heli doonto farsamooyin waxtar leh oo si weyn wax uga bedeli doona noloshaada. Subscribe oo nagu soo bir, sidoo kale la wadaag asxaabtaada horumarka la jeceshahay. Mahadsanid.